ninka la iigu sheegay inuu yahay xildhibaan magaciisana la yidhaahdo hebelkaa xusul waxaan leeyahay asaga hadda waxaan u aqoonsanahay inuu yahay argagixiso saaka wax badan baa ay celinayee sida shabaab loola tacaamuli lahaa waxaan rabaa horta dadka hadlaya in uu yaqaano waxa uu ka hadlayo oo uu yahay qof u diyaarsan ama fahamsan oo wax fakera ka qaba waxa uu ka hadlayo ninka la iigu sheegay inuu yahay xildhibaan magaciisana la yidhaahdo hebelkaa xusul waxaan leeyahay inuusan garan na uusan fahamsanayn waxa uu saaka dhaliilayo iyo waxa uu ka hadlayo midna inuusan faker ka qabinba horta inuu isweydiiyaa ficnaan lahayd yuu matelaa ciddee matelaa shabaabku ma aha kuwa qoryaha wata keliya shabaabku institutionka soomaaliya ay ka mid yihiin waxaanu qabanay iyagoo ciidan ah oo libisan oo uniform wataanu qabanay hadda ka hor asaga hadda waxaan u aqoonsanahay inuu yahay argagixiso cid kasta ee dhaliisha ee ka hor timaada howlgallada socda oo lagu sufeynaya cadowga soomaaliyeed ee cil iyo dhul diiday waxaan u aqoonsanahay inay yihiin shabaab hebelkaa xusulow waxaan kuu aqoonsanahay inaad tahay shabaab kumaanaan aqoonin adaa isu keen sheegay adaa saaka dadka iska caamo meediyaa isi soo dhigay kumaynaan aqoonin dowladda soomaaliya in shabaab institutionkii hay-addii sharci dejinta ee baarlamanka soomaaliya ay saaka ka soo dhex hadlaan dowladda soomaaliya lafteeda waxay ku tahay meel ka dhacay ku tahay hoos ha loo eegaan leeyahay hoos ha loo eego ninka guddoomiyaha baarlamanka ka ah baarlamanka soomaaliya baarlamaankii t f g aan ka soo wada mid ahay guddoomiye baarlamaan buu mar noo soo ah marna xildhibaan kunleeg ahaan ahayn dadka uu xildhibaanka u yahay hoos ha u eego xagga hoose ha fiiriyo si dhaba ha u eego kama aha garasho xumo ninka saa ka hadlay hebelkaa xusul kama aha garasho la-aan kama aha waa argagixiso waa caddaynaynaa sababtu tahay meesha uu sheeganayo inuu ka soo jeedo ee uu matelayo 20 sano ku dhawaad shabaab baa haystaa weligiina maalin inta meediyaha yimaado muu cambaarayn hay-adda nisoo ka soo baxay markii hore ayuu ka mid ahaa baarlamanka markuu soo aadayay historigiisa waanu haynaa wuxuu ka sii shaqay jirayna waa garanaynaa caddaymaanu haynaa in uu yahay argagixiso in uu yahay al-shabaab caddaymaan ku haynaa hoos ha loo eego dowladdu hoos ha u eegto anugu kura yar oo waxa uu ka hadlaya aan garanayn oo yacni isu maldahaya ujeedooyin badan isku maldahaya inaan siduu u hadla ma doonayo laakiin waxaan leenahay dowladda soomaaliya al-shabaab hadday boolisi ka leedahay oo in lala dagaalamaa ay dhab tahay madaxweynaha soomaaliya asagaa dagaalka cilaamiyey prime ministerku asagaa dagaalka cilaamiyey institutionkayna ka dhex hadlayaane institutionka hoos ha u eego fallaar baa saaran dushiise fallaartaa ha la eego inaba hadduu wax garanayo saaka ma hadleen hadduu hadlayana wuxuu u hadli lahaa in uu hore u socdo uu meesha loo socdo aado oo cadowga sidii loo naafay lahaa uu ka hadlo tan kale dadka uu aflagaadeeyey ee uu ku sheegay dad aan wax garanayn idima yaqaan waxa aad gashaanna ma garanayo waxa aad soo qabateenna ma garanayo kartida iyo geesinimada iyo dhiiranaantiinana ma garanayo waxaad aaminsan tihiinna ma aaminsana
caqiidada iyo mabaadiida iyo diinta islaamka iyo sharafka iyo qiyamka ku dagaalamaysaana ma gara karee wax kaloo aaminsan yahay annagaa xaal qaata idile xaal qaata annagaa idin garanayna annagaa idila howlgalnay annagaa idin hogaaminaynay baleeg wuxuu leeyahay lama hogaaminayo hoggaan male war annagaa hogaaminaynay 4 bilood bisha afraad baa dhammaanaysa ee aan duul ku jiray ee aan hogaaminayay dadka ee aan cadowga la dagaalamayay ee aan ka saarnay deegaamada inta aragteen leeg aan ka saarnay mas-uul ma lahu leeyahay baleeg annaguna leeyahay mas-uul maaha wa asagu muxuu yahay waxay ila tahay saaka wax badan baa ay celinayee sida shabaab loola tacaamuli lahaa بسم الله الرحمن الرحيم shalay oo taariikhdu ahayd 9 September 2022 abaara shantii galabnimo ayaa ciidanka dawladda ee sida gaarka u tababaran waxay howlgal ka fuliyeen deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkaas ayaa lagu beegsaday bartilmaameed ay argagixisadu ku aruurin jirtay dhaqaalaha oo isugu yeeri jireen dadka shacabka ah halkaas oo jab xoogan ka soo gaaray argagixisada sida ku cad war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa lagu dilay howlgalka horjooga carab oo ahaa horjoogihii ku-xigeenkii maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab ee deegaanka Mubarak iyo awmaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab kaas oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray awgii sidoo kale waxaa howlgalka ku dhaawacmay tobaneeye ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah oo ku jiro horjoogihii ugu sarreeyay ururka argagixisada ah ee al-shabaab ee deegaankaas Mubarak kaasoo lagu magacaabo Cusmaan Daawud sida ku cad mar kale war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xilliga uu dhacay howlgalku waxaa goobta ku sugnaa dad shacab ahaa oo argagixisadu ay u haysteen inay baad ka qaadaan ama ay isla markaasba baad ka aruurinayeen dadka qaar waxaa lagu guuleystay in goobta laga soo badbaadiyo walow dadka qaar ay wax ka soo gaareen howlgalkaas kuwaas oo haddaba baaristooda ay socoto sida aad la socotaan waxaa jira howlgallo lagu baacsanayo haraadiga kooxda argagixisada ah ee al-shabaab oo ka socda dalka oo dhan gaar ahaan gobolada Galgaduud Hiiraan gobolada Baay iyo Bakool sidaas la eg waxaa jira howlgal kale oo hore looga fuliyay deegaanka Basra taariikhdu markay ahayd 5tii bishii September 2022 kaas oo isna lagu bartilmaameedsaday maxkamad beenaadkii ay kooxda ku lahayd deegaankaas Basra haddaba waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dambi tahay la iskulana xisaabtamayo in loo dhaga nuglaado ama lala macaamilo argagixisada ciidii lagu helana maxkamad lala tiigsan doono walow waliba ay socoto maxkamadaynta iyo gacan ku haynta kiisaska noocaas ah waxaan ummadda uga digaynaa inay ka fogaadaan goobaha argagixisadu ay ku sugan tahay oo bartilmaameed ah si aysan dadka waxyeello uga soo gaarin وما سنتين وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته